Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibayaal dhammaantiinba aad iyo aad baan salaamayaa muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idinku sharaxo presentationkan uu leeyahay markaas smart methbot oo markaa lagu sharaxayo barnaamijka smart methbot oo ah bodkaaga shaqeynaya suuqa cryptocurrency-ga marka si fiican insha allah ila dhegeysta slide markaas isha ugu haya insha allah meel kasta oon akhrinayo marka okay slideka koobaad kugu soo dhaweynaya marka smart methbot in marka uu yahay bodkaaga shaqeynaya suuqa cryptocurrency-ga isagoo isticmaalaya markaas wax la dhaho meth trading wuxuuna ka dhex shaqeeyaa markaas ilaa 4 blockchain buu hadda ka dhex shaqeeyaa Solana blockchain, Ethereum blockchain, BSC blockchain iyo Base blockchain blockchainadaas markaa ka dhex shaqeynaya wuxuuna ka dhex qaadanaya markaas real trades oo markaas qaarna arbitrage yihiin qaarna ay sandwich traders ay yihiin oo automatically oo markaas wax bilaadan ah runtii aan soo faragelinayno isaga si automatic ah wax kasta uu qaadanayo adoo markaas gurigaaga jooga shaqadaada jooga halka doonto markaas ay jooga mashiinada smart methbot markaas uu ku shaqeeyo waa laba mashiin waa mashiin la dhaho sandwich bot iyo mashiin kale oo la dhaho atomic arbitrage bot waa laba bot amba laba mashiin macnaha way botka already waa mashiin markii hore waxa jiray sandwich botka ayaa markii hore ku shaqeynaynay laakiin hadda waxay soo kordhiyeen markaas atomic arbitrage bot kan oo ah markaas bot kale oo istaraatiijiyad kale markaas oo magaciisa ba ka aragtaan ku shaqeeya arbitrage okay kana faa'iido badan markaas kii hore sandwich botka ahaa waxna kaga fiican waxna kaga xun runtii haddaan idin soo koobo markaas sandwich bot isagoo faa'iidadiisa wuxuu ka keenayaa markaas waa dib u dhaca transactionska ee ku dhex jira blockchainada qaybta memory poolka blockchain kasta wuxuu leeyahay qayb la dhaho memory pool halkaas baa transactionska la keenaa halkaas buu iskaan gareynaya wuxuu arkayaa markaas meesha lacagta ku socoto tusaalahan wuxuu arkayaa 100 qof amba 100 walad oo hal token wada iibsanaya oo markaa transactionkooda markaas pending yahay oo haddii transactionskaas markaa la fasaxo qiimaha coinkaas uu kor u kacay amba tokenkaas marka uu ka horgelaya already 100 qofba isagoo markaa ku sii jira tokenkiiba ayaa hadhow dadkii kale loo soo fasaxaya transactionadii qiimihii coinkina uu kacaya markaasna wuxuu sameynaya markaas inuu ka baxo oo marka lacagtooda lasoo fasaxo oo coinka qiimihiisa kor kaco ayuu ka boodaya ma fahanti marka qaabkaas uu faa'iidadiisa u keenaya waxna la dhahaa sandwich traders ayuu markaa qaadanaya okay wuxuu ku shaqeeyaa istaraatiijiyada la dhaho front run iyo back run ayuu isticmaalaya inuu si degdeg ah uga horeeyo kadibna si degdeg ah markaas uu uga baxo atomic arbitrage botkana waxa weeye saad magaciisaba ka aragtaan faa'iidadiisu waxay ka imanaysaa kala duwanaanshaha qiimaha ee tokenska ee ku jira dexga waxa la dhaho decentralized exchangeska dhowr dex ayaa hal token ku wada jiraya markaa midna qiimihiisa ku jabnaanaya midna qiimihiisa ku qaali noqonaya ka qiimihiisu jaban yahay buu iibsanaya kadibna wuxuu la tegayaa ka kale qiimaha coinkaas amba tokenkaas uu qaali ku yahay kadibna farqiga u dhexeeya qiimahaas buu ka faa'iideysanaya okay istaraatiijiyadu isticmaali waxaa kamid markaas cross dex arbitrage multi hop routing waxa la dhaho ku istaraatiijiyadaas markaas ayuu isticmaalaya wayna kala lacag badin marka la iibsanayo atomic arbitrage $100 baad bixinaysaa kan kale sandwich botkana hal mar baad wax bixinaysaa markaas $50 blockchainada markaas ilaa hadda la shaqeynayaan active-ka ee live-ka ah oo Solana, Binance Smart Chain iyo Ethereum saddexda blockchain ba live ah Base isagu weli live maaha way soo wadaan ilaa hadda wuxuu ka shaqeynaya markaas konton wadan buu ka shaqeynaya barnaamijkani waxaa active u yahay botkan in ka badan 165,000 bay leeyihiin laakiin way already way ka badan tahay waanad arki doontaa insha allah markaan idin geeyo website-ka rasmiga ah faa'iidada maalinka soo saaray 0.4 ilaa iyo 1.92 bay u dhaxaysaa oo faa'iidada markaas maalinka la helayo wax isku mid ah ma waxa ku xidhan markaas suuqa iyo fursada suuqa markaas uu ka helo qofna qof la faa'iido maaha qofna qof ma taqay billa faa'iido maaha maalin la faa'iido maaha sandwich contract waxa weeye waa bot kale dhaho sandwich bot kontragada markaas uu leeyahay qofku markaas u shaqeynaya iyo ma taqanay